waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa ma jiro suuraaqaday tiraahdo islaamaad Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inaad cad ama siyaad barnaamijkii ugu horeysay ولا الحمل بالشيء كتاب كلا بينك siyaad barre oo shalayta ku geeriyooday dalkan maanta oo kale labada Janaayo 1995 waxaa dalka Nigeria ku geeriyooday madaxweynihii xukunka militariga ku maamulayay 21 sanadood dalka Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre. haddaba Maxamed Siyaad Barre kumuu ahaa? Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay sida dad badani ay la socdaan degmada Galbahaarey ee gobolka Gado sida qoyskiisa ay sheegeen sanadkii 1919 inkastoo dadka qaar ay sheegaan in Maxamed Siyaad Barre uu intaasi ka weynaa oo da'da sideetamaadka uu ku dhawaa. sidaas oo kale dadka qaar ayaa sheega inuu ku dhashay degmada Shiilaabo oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Maxamed Siyaad Barre hooyadii waxaa la oran jiray waxaa laga yaabaa in dad badani aysan maqlin Shaqlan Warfaa. isaga oo 16 jir ay wuxuu tagay magaalada Beledweyne halkaas oo isaga iyo dhalinyaro kale oo la socday ay iska qoreen booliskii Talyaaniga sanadku markuu ahaa 1936. dalacaadii ugu horeysay wuxuu qaatay sanadkii 1941 isaga oo noqday alifley boolis ah. 3 sano kadib waxaa loo diray magaalada Nairobi halkaas uu tababar u tagay dugsi booliska lahaa oo magaciisu ahaa Jim School. sanadihii kontomaadkiina wuxuu tababar kale u tagay dugsi kale oo booliska ay lahaayeen midkaas uu ku yilay dalka Talyaaniga. sanadihii 60maadkiina wuxuu ku biiray ciidamada qalabka sida isaga oo ka baxay booliska. markii dalka Soomaalida oo gobonimadiisa qaatayna wuxuu noqday ku-xigaha taliyaha ciidamada isaga oo ku xigay General Daawud. General Daawud markii uu geeriyoodeena isaga ayaa noqday taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaalida. 1969 Oktoobar 21 ciidamada qalabka sida ayaa waxay la wareegeen xukunkii dalka dhowr cisho kadib markii madaxweynihii dalka Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaake lagu dilay magaalada Laascaanood. markaas oo Maxamed Siyaad Barre uu gudoomiye u ahaa saraakiishii afgambiga dhigay ee riday dowladii rayidka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. wuxuu dadka reediyowga kala hadlay Oktoobar 24 1969 dhowr cisho kadib markii ciidamada xukunka ay la wareegeen. khudbadiisii ugu horeysay codkiisa ma hayne wuxuu ku yiri waxaan awoodda dalka kula wareegnay magaca dadka Soomaaliyeed iyo magaca dalkooda ay jecel yihiin. waxaan ka codsanayaa Soomaali oo dhan inay u soo baxaan oo ay dhisaan ummadooda kana dhigaan ummad adag wax alaalana wixii awooddooda ay isticmaalaan haddii ay ahaan lahayd hantidooda iyo maskaxdooda si ay dalkooda u dhisaan oo si waliba isaga ilaaliyaan inay baryootamaan. 21 sano ee Maxamed Siyaad Barre uu xukumayay dalka Soomaalidu waxay soo mareen marxalado kala duwan oo qaarkood aad u adkaayeen. waxaa ka mid ahaa abaartii dabadheer ee sanadkii 1974 oo dad badani ay ku dhinteen. inkastoo dowladda barigaasi ay howl weyn qabatay waxaase dhibaatooyinkaasi ugu weynaa dagaalkii ogaadeen ee qarxay dabayaaqadii sanadkii 1977 socdayna ilaa iyo bilowgii sanadkii 78 ujeedadiisana ay ahayd in lagu xureeyo dhulkii loo yiqiin Soomaali galbeed. dagaalkaasi oo Soomaalida markii dambe lagaga adkaaday waxaa kacaankii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ka soo gaaray qasaarihii ugu weynaa ee xagga militariga siyaasadda iyo weliba xagga dhaqaalaha taas oo dad badani ay sheegaan inaysan ka soo bogsan dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre wuxuu dalka Soomaaliya xukumayay 21 sano intuusan ka cararin magaalada Muqdisho isaga uu ku jiray mid ka mid ahaa dabaabadaha dagaalka markaas oo qabaa'ilka si xoogan isu dilayeen isaga u baxsada dhanka Nigeria. markii uu Maxamed Siyaad Barre tagay magaalada Lagos ee dalkaasi Nigeria sanadkii 1992 ay dowladda Nigeria waxay sheegtay in Maxamed Siyaad Barre ay siiyeen magangalyo siyaasadeed oo ku meel gaar ah iyagoo u cuskaday xuquuqda aadanaha. koox ka mid ah kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Nigeria ayaa go'aankaasi ku eedeeyay inuu yahay mid haybadda qaranka hawada ku daraya waxayna ku baaqeen in Maxamed Siyaad Barre dalka laga saaro.
maxamed siyaad bare markii arrinta halkaasi maraysa waa uu gaabsaday isaga oo aanan cidna waraysi siin. maxamed siyaad wuxuu magaalada Lagos ka deganaa aagaga aadka u quruxda badan ee dadka tujaarta ahi degan yihiin laguna magacaabo jasiiradda Ikoyi. wuxuu in muddo ah ku xanuunsanaa dalka Nigeria wuxuuna ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Lagos isaga oo qabay cudurka sokorta ama kaadi macaanka. waxyaabaha lagu xasuusto maxamed siyaad bare ee dhanka wanaagga waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ninkii soo rogay in farta laatiinka lagu qoro afka Soomaaliga si kor loogu qaado dadka wax aqrin karaya waxna qori karaya. sidaasi oo kale waxaa lagu xasuustaa in jidadka iyo gudaafadaha uu ka aruuriyay carruurta dibadjiifka ah ee aan wax daryeel haysan. sidaasi oo kale wuxuu wax weyn ka qabtay dhanka caafimaadka, dhismaha jidadka, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha. qaladaadkii ugu weynaa uu sameeyey waxaa ka mid ahayd beenintii aayadaha qur-aanka, dilka wadaadada, xasuuqii shacabka waqooyiga loo geystay xilligaasi oo burburkii dowladdiisa ay bilaabatay, iyo weliba ku dhaqanla'aantii shuruucda dalka loo sameeyey. khudbaddiisii ugu dambaysay ee rediyo muqdisho laga baahiyey wuxuu kula hadlay shacabka reer muqdisho si aysan ugu qayb qaadan biliqadii ka socotay caasimadda. nin laban oo ama ajnabi jooga ama dalkaba jooga inuu dadka masaakiinta ku laayo xabad maaha suu dhiibo. waxa ka sii xun kuwa sida foosh xun waxu bilaqaysanahay. waxaan la yaabsanahay ninka inta xafiiska dowlad galay warqadihii tuuraayo dhan dariiqa ku daadiyay xaggee buu socdaa muxuu ka helayaa yuusa siinaya warqadahaas. yani macnaheedu waxa weeye wuxuu awood u waayey inuu muxuu ahaa inta warqa qaado uu ajnabi u geeyo. macnaha waxa weeye suuqa ka garto buu uga jeedaa. waxaa ka sii xun dadka masaakiinta ah oo inta xabadii lagu weerariyey iyo boobkii iyo wixii sii qaxaya oo gaajada ula qaxaya oo jidka daadsan mee dhabal loo furay oo xabar laga baxa waxaa daadsan dad masaakiin oo sii guuraya. waxa aan leenahay war dadku guryahooda u daaya xiriire ka daaya xabadii qaylada iyo boobka iyo qoon waxa ka foosho ka daaya. dad islaam ahaatiin Soomaali baatiin sharaf iyo karaamad laan jirta wayna wada xorine almiina waxoogaa dad iska xortay kulli xorine حتى إن أتقرتن هي الإسلام ماذا كبعضا وحرام. barnaamijkeena xusuusta maanta oo kale waxaan ku soo qaadanay geeridii maanta oo kale 2 Janaayo 1995 ku timid Jaalle Maxamed Siyaad Bare kuna geeriyooday dalka Nigeria gaar ahaan Lagos isaga oo deganaa magaalo xeebeedka Ikoyi. waxaa loo baahan yahay inaad caqli yeelataan oo aad garataan Ilaahay caqli wuxuu inoo siiyey iyo maskaxda inaynu ku fakarno. wuxuu Ilaahay inoo siiyey qalbiga wuxuu inoo siiyey inaan ku naxariisano wixii naxariis mudan inaan naxariisino. waxaan leenahay dadkaas masaakiinta oo iyagu aan carari karin oo caruurta oo odayaalka oo habraha oo haweenka dinta dinaysan ka daay iyagana waxaa loo baahan yahay in inta iimaanka qabaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii dhimanaya meel uu kaga baxsanay ma jiro inay guriyooda joogaan aan ka carari. waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha Soomaaliya sicib xudud ma jiro walaaqatay tiraado Soomaaliya waa sicib xudud ma jiro sababtoo ah wadinka ay leeyihiin dad islaam ahaatiin Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inaad Maxamed Siyaad Bare markii ugu horeysay waxaa taageeray ولا الحمل بشيء كتاب كلا بين Siyaad Bare oo shalayta ku geeriyooday dalkan